xasan cabdi bile oo ay Soomaalida u taqaano xasan kaneeco waxa uu ku nool yahay degmada Doolo Soomaaliya ee gobolka Gedo goobaha ay bulshada isugu yimaadaan gaar ahaan dhalinyarada ayaa waxa uu u qaadaa heeso qaaci ah oo isaga uu leeyahay iyo kuwa markaasi ay leeyihiin fanaaniinta Soomaaliyeed xasan kaneeco ayaa fanka kale rajo aad u wanaagsan balse inkastoo ay jiraan daruufo ku gadaaman noloshiisa ayaa haddana qalabka uu heesaha ku garaaco waa kuwa isaga uu samaystay sida uu ii sheegay barashada heesaha qaaciga iyo hal abuurnimada waxa uu ku bilaabay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaan ka bilaabay horta heesaha oo dhanka oo xamariga ah habas khamiis ayaan la jiri jiray waagi aniga aan yaraay asaga marka caabi u ahayno alaabta markii meelaha bulshada ay tiyaatarka markii alaabta la dhigo oo lagu ciyaaro korontadii waxaas iyo matoorarkii alaabta saan caabi jiray habeenkii qalabkan qaada jiray waa ku baashada jiray sidii horta ku bartay markaan ku bartayna magaalkan la galay waxaad iga caabi oo waxaan ana samaystay dawaa geed mareer way geedaan tan waa xeeridii oo soorta lagu cana jiray way kan waa maqaar lo'aad waxaan dhan fabrikadan farsamada ana aska leh wariigiisna buka waa biris oo kuwaca waxtarkiiskii la yasay basqaan waa la dhahay wigiga yaa ka bida wayna waaxido wadankeeno samee wayna waaxido wadankeeno samee walbo wadanka xasan cabdi bile xasan kaneeco oo ay ka muuqato duruufo dhanka nolosha ah ayaa haddana rajadiisu ay tahay inuu heli doono caawin iyo nolol midan ka wanaagsan wuxuuna dadka Soomaaliyeed oo fanka jecel ka codsaday inay ka caawiyaan qalabka uu ku muujin lahaa hal abuurnimadiisa waxaan codsan lahay dawladda ama hay'adaha inay qalabkan aniga samaystay inay iga bedelaan qalab oo casri ah inay sameeyaan oo horumar gaarsiiyaan aan macnaha banaamaha la wareega oo la socda garab la'aan ayaa igu haysa fagnimada waxaan dhan ana samaystay waa geedo la isku xiray oo silig waay waxaan ka dhigtay kaban oo caadi heesa oo qaada oo ku alifa hees hor loo qaada oo qaada heesaan aan leeyahay ku qaada waxaan rabi lahay marka dawladda iyo macal hay'adaha inay macnaha qalabkan iga bedelaan qalabkan original ila isiyaan oo horumarsan ku gaaro oo lagu aqoonsado waxaan mar hore ayaan ku dhex jiray weliin horumarkeeda ma arkin waxaan markaan xarbiib marjuumal maalimeedkayga lamba keelaaba ma horumarkan casri ah waxaas ma keelo marka waxaan rabaa inaan dawladda ama hay'adaha inay macnaha karti yeelan oo imuujiyaan fannimada jecelahay inay xiisi yeelan intaasaan wallahi xara xaqran Abdinur Ismaan Cabdi raadiyaha TV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Doolo Soomaaliya.